habeen mugdi ah waddada u dhaxaysa magaalooyinka waaweyn ee Khuraasaan waxay ahayd mid cidla ah. Safareydii way baqayeen, hooyooyinkiina carruurtooda ayay laabta ku hayeen si ay u aamusiyaan, ganacsataduna hantidooda ayay qarinayeen. Haddaba waa maxay waxaanay ka baqayaan? Ma libaax baa mise waa ciidan shisheeye? Waxaanay ka baqayaan waa hal nin oo keliya, nin markii magaciisa la maqlo wadnaha uu gariiri jiray, nin la odhan jiray haddii uu jidka joogo qofna ma nabadgelayo. Laakiin ninkaasi waa isla ninka sannado kadib istaagay xaramka Maka ee markii uu quraanku akhriyeyna dadkii oo dhammi ay ooyeen ilaa ay suuxeen. Waa ninka khaliifkii Haaruun al-Rashiid uu ugu yimid si uu duco uga helo. Haddaba waa kuma ninka labada weji leh? Sidee buu tuuggii waddooyinka goyn jiray oo ku noqday caabidkii xaramka? Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisadii Fudayl ibn Ciyaad. Fudayl ibn Ciyaad waxa uu ku dhashay gobolka Khuraasaan oo hadda u qaybsan Iiraan, Afghanistan iyo Uzbekistan, gaar ahaan tuulo la yidhaahdo Samarkandi. Waxa uuna dhashay sannadkii 107 ee Hijriga. Nolosha Fudayl waxay ka bilaabatay meel aad u qalafsan. Waxa uu ahaa nin xoog badan, jir ahaana dhisan oo geesi ah, laakiin geesinimadiisa waxa uu u adeegsan jiray dhanka xun, wuxuuna noqday tuug waddooyinka istaaga. Fudayl ma ahayn tuug iska caadi ah, ee waxa uu ahaa hogaamiye burcad, waxayna fariisin ku lahaayeen meel u dhaxaysa Abiward iyo Sarqas. Meeshaasi waxay ahayd dabin. Qofkii soo mara waa la dhici jiray, hadduu iska caabin sameeyana waa la dili jiray. Waxaa la sheegaa in Fudayl uu lahaa shaarba waaweyn iyo weji dadka argagax geliya. Marka uu xirto dharkiisa burcadnimada, saaxiibadiisi xitaa way ka baqi jireen. Laakiin wax cajiiba ayaa jiray. Fudayl inkastoo uu tuug ahaa, haddana waxa uu lahaa nooc sharaf burcadnimo ah. Maalin maalmaha ka mid ah, safar ayaa jidka soo maray. Burcaddii Fudayl ayaa weerartay. Nin ka mid a safarkii ayaa dahabkiisa qaatay, wuu cararay si uu u qariyo. Wuxuuna arkay nin teendho yar dhex fadhiya oo wejigan ay mara ugu xiran tahay. Ninkii waxa uu mooday inuu nin fiican helay. Markaas ayuu ku yidhi, walaal, dahabkan ii sii hay, burcad baana haysata eh. Ninkii teendhada ku jiray waxa uu ahaa Fudayl, wuxuuna ku yidhi, halkaasi dhig. Ninkii safarka ahaa markii uu dib u soo laabtay, waxa uu arkay burcaddii oo alaabtii oo dhan qaadatay, wuxuuna u soo laabtay si uu dahabkiisa u qaato. Waxa uu arkay ninkii uu dahabka u dhiibay oo ay hareerihiisa fadhiyaan burcaddii wax dhacaysay, oo welibana ay isaga u qaybinayaan hantida. Ninkii safarka ahaa wuu naxay, wuxuuna is yidhi, maanta hantidaadii waad weysay, ninkii aad u dhiibatayna waa hoggaamiyihii. Laakiin Fudayl markii uu ninkii arkay wuu u yeeray, wuxuuna ku yidhi, kaalay dahabkaaga qaado. Burcaddii kale ayaa qaylisay, waxayna ku dhaheen, hoggaamiye, maanta waxba ma aanan helin, dahabka miyaad celinaysaa? Fudayl waxa uu yidhi, ninkani aniga ayuu i aaminay, anigana Alle ayaan aaminay si uu maalin uun ii soo hanuuniyo. Ma rabo inaan aaminaadda ninkani aan khiyaano. Tani waxay muujinaysaa Fudayl inkastoo uu dembiile ahaa, haddana qalbigiisa ay ku jirtay dhimbil yar oo khayr ah, taasoo u baahnayd in la afuufo. Habeennada ka mid ah, Fudayl waxa uu u baxay hawshiisii xumayd. Riwaayadaha qaarna waxa ay sheegaan inuu u socday si uu wax u soo dhaco. Qaar kalena waxa ay sheegaan inuu caashaqay gabadh ay deris ahaayeen, uuna rabay inuu zina ku dhaco. Si kastoo ay ahaataba, waxay ahayd dembi weyn. Fudayl waxa uu fuulay derbigii guriga. Intii uu derbiga saarnaa uuna isku diyaarinayay in uu soo boodo, ayaa waxaa guriga gudihiisa ku jiray nin cibaado badan oo salaatuleyl tukanayay. Ninka waxa uu cod dheer ku akhrinayay suuradda Alxadiid. Inta uusan Fudayl derbiga ka soo boodin, ninka waxa uu gaaray aayadda dhahaysa, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله oo micnaheedu ay tahay miyaysan gaarin wakhtigii ay mu'miniinta qalbiyadooda ku khushuuci lahaayeen xuska Alle iyo Qur'aanka xaqa ah. Aayaddaasi waxa ay ugu dhacday sidii falaarta oo kale qalbigii Fudayl.
wuxuuna dareemay in Alla subxaanahu wa tacaala uu isaga si toosa ula hadlayo uuna ku leeyahay, Fudaylow, wakhtigii ma gaarin miya? Intaas oo sano ayaa dembi ku jirtay, kuguma filna miya? Fudayl derbigii ayuu ku dulqaboobay, ilmo ayaana ka timid, wuxuuna ku qayliyey isagoo derbiga saaran, balaa yaa Rabbi, waa la gaaray. Haa Rabbiyow, wakhtigii waa la gaaray. Fudayl wuu soo degay, laakiin gurigiisa ma uusan aadin. Waxa uu u cararay meel kale, wuxuuna tegey guri burbursan si uu halkaasi ugu fakaro. Habeenkaasi waxa uu ahaa habeenkii ugu dheeraa noloshiisa. Isagoo gurigii burbursanaa dhex fadhiya ayaa waxaa agtiisa soo maray dad safar ah. Dadkii safarka ahaa ayaa wada hadlay. Mid baa yidhi, aan sii soconno oo aan safarkeenna sii wadanno. Mid kale ayaa yidhi, maya, halkan ayaan seexanaynaa ilaa uu waagu ka baryayo, sababtoo ah Fudayl ayaa waddada inoo fadhiya oo ina dhici doona. Fudayl markii uu maqlay hadalkaasi, xanuunkii ayaa ku sii kordhay. Wuxuuna yidhi, habeenkii oo dhan dembi baan ku taaganahay, dadkii muslimiinta ahaana cabsi ayaan ku hayaa. Ilaahow, waan kuu toobad keenay, toobaddeedana waxaan ka dhigay inaan u guuro beydkaaga xaramka ah. Subaxaas Fudayl waxa uu noqday nin cusub. Fudayl markii uu toobad keenay, tallaabadiisii ugu horraysay waxa uu ka dhigay inuu raadiyo dadkii uu xoolaha ka dhacay si uu ugu celiyo. Wuxuuna tegey magaalada Kuufa. Kuufa waxay ahayd xaruntii cilmiga, laakiinse qof dembiile ahaan jiray ma baran karaa cilmiga diinta? Haa, wuu baran karaa. Fudayl waxa uu tusaale u noqday in albaabka Alle uusan xirnayn, wuxuuna bilaabay inuu cilmiga ka barto culimmadii ugu waaweyneed wakhtigaasi. Waxuuna la fadhiistay Imaam Abu Xaniifa, waxuuna la kulmay Sufyaan as-Sawri, kaasoo aan qisadiisa kaga soo hadalnay muuqaalkii kan ka horreeyey. Haddii aadan daawan soo daawo, waxaadna ka heli doontaa qaybta kore ama description-ka muuqaalkan. Fudayl waxa uu noqday nin aad u ilmeeya, waxaana la sheegaa in 30 sano uu murugaysnaa. Sababta murugadiisa waxay ahayd inuu xasuusan jiray maalmihii uu Alle ku caasinayey. Maalin isagoo Kuufa jooga ayaa waxaa loo keenay lacag aad u badan oo hadiyad ah, laakiin wuu diiday. Wiilkiisii ayaa ku yidhi, Aabe, waan u baahannahay lacagtan. Laakiin Fudayl waxa uu ku yidhi, wiilkaygiiyow, aniga iyo lacagtan waxaan nahay sida qof lo' ah oo doonaya in la qalo, laakiin isleh cawska ii badiya. Wuxuuna ula jeeday in raaxada adduunka ay tahay mid qofka halaag u horseedi karta haddii uusan iska jirin. Fudayl waxa uu u guuray magaalada Maka al-Mukarrama, halkaas ayuuna ku qaatay intii noloshiisa ka dhinnayd, waxaana loo bixiyey sheekhii xaramka. Habeenkii oo dhan wuu tukan jiray, maalintiina wuu soonnaa. Qisada ugu caansani ee Fudayl waa kulankii dhex maray isagii ninkii dunida ugu awoodda badnaa xilligaasi, khaliifkii Cabbaasiyiinta ee Haaruun al-Rashiid. Habeennada ka mid ah, Haaruun al-Rashiid ayaa Maka yimid, wuxuuna dareemay culays xagga qalbiga ah. Wuxuuna wasiirkiisii ku yidhi, ii keen nin qalbiga ii daweeya. Waxay garaaceen albaabka Fudayl ibnu Ciyaad. Fudayl waxa uu saarnaa dusha sare ee gurigiisa, wuxuuna maqlay garaaca. Wuxuuna ku yidhi, waa kuma? Waxaana la yidhi, waa amiirulmu'miniin. Fudayl waxa uu yidhi, maxaad iga rabtaan? Wakhtigayga ha iga luminina. Wasiirkii ayaa ku yidhi, miyaadan ogayn in adeecidda amiirka ay tahay mid waajib ah? Fudayl wuu soo degay, albaabkii ayuu furay, kadibna waxa uu demiyey shumicii si uusan u arkin wejiga amiirka, ama amiirka uusan u arkin isaga wejigiisa. Haaruun al-Rashiid waxa uu soo galay qolkii mugdiga ahaa, wuxuuna gacanta ku raadiyey Fudayl. Gacantii Haaruun al-Rashiid waxay taabatay gacantii Fudayl. Markaas ayuu Fudayl yidhi, Alla jilicsanaa gacantan haddii ay ka badbaado cadaabka Alle. Isla markiiba Haaruun al-Rashiid wuu gariiray, wuuna ooyey ilaa uu dhulka ku dhacay. Fudaylna waxa uu bilaabay waana adag, wuxuuna ku yidhi, yaa amiirulmu'miniin, aabbaha Cabbaas waxa uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu weydiistay xil. Laakiin nebiga waxa uu ku yidhi, adeer, naftaadoo aad maamusho ayaa ka qayr badan maamulka dadka oo dhan. yaa amiirulmu'miniin, maalinta qiyaame qof kasta
naftiisa ayuu la xisaabtamayaa, adigana ummaddan oo dhan ayaa lagugula xisaabtamayaa. bal ka taxaddar wejigaagan quruxda badani inuu naarta galo. haaruun aad ayuu u ooyey, ugu dambayntiina waxa uu isku dayey inuu Fudayl siiyo kiish dahab ah oo 1,000 diinaar ah. Fudayl wuu carooday, wuxuuna ku yidhi, waxaan kugu yeerayaa badbaadada aakhiro, adigana waxaad iigu yeeraysaa balaayo adduunyo. Fudayl wuu diiday lacagtii, wuuna ka tegey gurigii. haaruun al-rashiid markii uu baxayay waxa uu yidhi, boqorka dhabta ahi waa Fudayl ee aniga ma ahan. Fudayl waxa uu dhalay wiil la odhan jiray Cali. Cali waxa uu ahaa wiil ka cabsi badan aabbihiis. Fudayl waxa uu odhan jiray, aniga cibaadada waxaan u sameeyaa si qasab ah oo naftayda aan ku jiido, laakiin Cali cibaadadu waxay u tahay raaxo. Cali ibnu Fudayl waxa uu dhintay isagoo dhallinyaro ah, sababta dhimashadiisana waa mid cajiib ah. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo tukanaya salaadda, ayaa imaamkii masjidka waxa uu akhriyey aayado ka hadlaya naarta iyo maalinta qiyaame. Cali markii uu maqlay aayadahaasi wuu suuxay. Markii la eegayna nafti ayaa ka baxday cabsida Alla darteed. waxaana lagu naanaysaa qaatilul qur'aan, ninkii uu dilay qur'aanka. maalintii uu wiilkiisa dhintay, Fudayl wuu dhoola caddeeyey. dadkii ayaa yaabay, waxayna ku dhaheen, shiiqow, wiilkaagii ayaa dhintay, adna waad qoslaysaa. Fudayl waxa uu yidhi, Alle ayaa jeclaystay arrinka dhimashada wiilkayga, anigana waxaan jeclaystay inaan raalli ka noqdo wixii Alle uu jeclaystay. tani waa heerkii iimaanka ee ka raalli noqoshada qadarta. Fudayl ibnu Ciyaad waxa uu ummadda uga tegey xigmado dahabi ah. aan dhegaysanno qaar ka mid a xigmadihiisa. waxa uu yidhi, haddii aad aragto qof ka sheekaynaya dadka kale xantooda, ogow inuusan caqli lahayn, waayo haddii uu caqli leeyahay ceebihiisa ayaa mashquulin lahaa. waxa uu yidhi, 2 dembi iskama dhaqmaan, midkood waa inaad dadka dhibto, midkoodna waa in Alle cad ku caasido. dembiga Alle waa la dhaafi karaa haddii aad toobad keento, laakiin dembiga dadka lama dhaafayo ilaa ay ayaga ku cafiyaan. sanadkii 187 hijriga, magaalada Maka waxaa ku xanuunsaday imaamkii cabsida iyo ilinta. Fudayl bin Ciyaad, ninkii noloshiisa ku bilaabay tuugnimada kuna dhameeyey welinimada, ayaa naftii ay ka baxday. waxa uu ku aasan yahay meel u dhow saxaabada iyo ehelka rasuulka sallallahu calayhi wasallam. ma jiro qof dembi badan oo Alle aan u laaban karin. haddii hoggaamiyihii burcadda uu noqday imaamkii xaramka, adigana albaabka toobadda way kuu furan tahay. fadlan daawade, haddii aad ka heshay qisadan quruxda badan, fikirkaaga ku aadan qisadan noogu reeb qaybta kommentiga. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe saar janalka. haddii aad hore noogu xirnaydna muuqaalka leegdhe oona sii sheergare.